wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxa ay ku soo waramayaan in halkaasi uu ka dhacay maanta dagaal xoogan. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Geed Qaboobe oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada Puntland ee aaga Tukaraq, kaasi oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale waxaa la sheegayaa in dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalku uu dhex maray. saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxa ay noo sheegeen in dagaalka uu ku dhintay hal ruux halka ay ku dhaawacmeen 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka maamulka Puntland ee ku sugan jiida hore ee Tukaraq. ma jirto faahfaahin intaasi ka dheer oo ay saraakiishu ka bixiyeen sababta keentay inuu isku dhacaasi yimaado oo uu wada dhaxeeyo. ma jirto faahfaahin intaasi dheer oo ay saraakiishu ka bixiyeen sababta keentay isku dhacaas, ayeeshee warar ka madax bannaan oo aanu helin ayaa sheegaya in ciidamada ay isku qabsadeen qaad. waa markii ugu horeysay uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland ee ku sugan aaga deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Cusmaan Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta Ras Media, Muqdisho.